السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada saaxiibada Maashil Media. Dhammaanteen waxaan wada ogsoonahay in dalkeena Soomaaliya uu soo maray dagaalo iyo burbur aad u baaxad weyn, midaas oo shacabka Soomaaliyeed u horseeday inay u qaxaan dalalka dariska ah si ay u helaan magangeliyo iyo nolol dhaanta midii ay ka soo qaxeen. Muuqaalkan maanta waxaan ku soo qaadanaynaa wiil Soomaaliyeed oo waqtigii dalka Soomaaliya uu ku jiray burburka ka tagay iyadoo waqtigaas aad u adkeyd in laga baxo dal ay ka socdaan dagaalo. Magacaygu waa Ayib Cabdiqaadir. haddii aadan wali ka mid noqon saaxiibada aan ku midownay barteen YouTube-ka nagu soo biir. Cumar Muuni iyo walaashii waxa ay wadanka ka baxeen iyadoo dagaal ay ka socdaan. Waqtigaas waxa uu jiray Cumar 9 sano. Hooyadood mar walba waxa ay doonaysay in mustaqbalkoodu uu noqdo mid ay ku faraxdo si ay ula tartamaan jiilkooda. Waxa ay markii ugu horeysay ay u qaxeen wadanka Tansaaniya, balse kuma sii hakan. waxaanay doonayeen inay aadaan Yurub, waxaanay ugu dambeyntii galeen wadanka Holland. caqabadihii ka hor yimi markii uu yimid Holland waxa ay ahayd barashada luqadda Dutch-ka, waxaana uu Cumar aaminay inuu barto luqadda si uu u sameeyo horumar, midaas oo u furtay wadooyin una horseeday inuu hayaanka guusha cagta saaro. waxa uu galay iskuul. Cumar Muuni waxa uu lahaa fikrad hal abuur oo ahayd dhar samaynta. fakarkii ay aaminsanaayeen dadka Hollandiiska oo ahaa inaysan dadka qaxoontiga ah aysan waxba ku soo kordhin karin wadankooda ayuu aad uga murugooday Cumar, balse ugu dambeyntii fakarkiisii waxa uu noqday mid guuleysta ilaa adduunka oo dhan fakarkiisii uu ku soo kordhiyay ay wada gaareen. waqtigii uu dhiganayay iskuulka Cumar Muuni waxa uu gacantiisa ku samaystay boorso, midaas oo cajabisay 3 arday oo ka mid ah ardaydii ay galaaska wada dhigan jireen. waxaanay ka codsadeen inuu u sameeyo 3 boorso, waxaanay dhiirigelin u noqotay markii ay bateen dalabaadkii boorsooyinka oo ay dad badan ka dalbadeen inuu u soo sameeyo Cumar Muuni waxa uu helay abaalmarintii ardaygii ugu wanaagsanaa ee sanadka. boorsooyinkii uu sameeyay waxa qaatay dad dunida caan ka ah sida Oprah Winfrey iyo dad kale oo badan oo caan ah. waxa cajiib ah in ay jecel yihiin boorsooyinka aan sameeyay dad caan ah, laakiin hadafkaygu waa daacadnimo inaan sameeyo badeecad aad u baaxad weyn iyadoo aan loo eegayn cidda iibinaysa. waxaana uu asaasay warshad soo saarta boorsooyinka. waxa uu yiri waxa aan helay fursado badan markii aan Netherland aan qaxoontiga ku ahaa. maanta waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo dadka fursad ay ku shaqaystaan. talada aan qaxoontiga siinayo waa inay sii wadaan si walba oo ay ahaato. haddii aad dadaasho mar walba oo aad raacdo riyadaada, wax walba waa macquul. dunidana intaad saaran tahay raac riyadaada. mararka qaar way adkaan kartaa, laakiin haddii aad rumaysato cidda aad tahay oo aadan ilaabin meeshii aad ka timi, waad guulaysan kartaa. haddii aad muuqaalkan wax ka faa'iiday, noogu reeb commentiga. sidoo kale muuqaal noocee ah ayaad jeclaan lahayd inaan soo diyaariyo? insha Allah waa inoo muuqaalkan muuqaalka xiga saaxiibada Maashil Media.